who are you? Passport Somalia ma wadatay muqaadalka imaanaysa ma ku soo gashay visa soo qaadane yay ka khaldan passport visa ma haysan war passportkaaga Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Swedishka iyo Jarmalka ay waxa hayso oo muran ku baxay da passport ajnabi ah wadatay Soomaali ma ay Somaliland visa Soomaaliya bay wadanka Somaliland ku soo gelaysa waxay idaan marka anoo ka haajira oo Somaliland ka haajira oo Somaliland eerteeda indhayga ka qabsada baan maanta taageera waxaan maanta taageera oo intay ilmahayga geeysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلنا هادين مهتدين إله نغدك كوا هنونسان دادكنا هنونية دمان دادكا سوماليات برنامجك قفاعو كداوانية سومالي كنديان تي في كندقيسانية راديو بورمي CKMS 102.7 FM أنتو maalin sabti ah bisha November Feras 2025 dadka barnaamijka dhageysanaya waxa aad ila daawataan e-visa jawaabaha ay bixinayaan madaxdii Somaliland agaalanto barnaamijka e-visa kaasina wuxuu noqonayaa e-visa waa in barnaamij e-visa qora ay geliyaan oo dadka Somaliland ku soo gelaysa waxay idaan marka anoo ka haajira oo Somaliland ka haajira oo Somaliland eerteeda indhayga ka qabsada baan maanta taageera waxaan maanta taageera oo intay ilmahayga sida imika loo qaylinayana anagu daxamar waanu idinka xoreynay aniga raggaygii kale ee aan ka midka ah hadda anaga iyo qoladii xamarna annana waa nadrideen xamarna waa doorateen halka barnaamijka aad ka daawanaysaani waa Somaliland waxaad ogtihiin e-visa inuu yahay visa international ummadda Soomaaliyeed waxaan la wadaagaya horey sidii aan ugu sheegay dadka Soomaaliyeed mar walba waa dad wada dhashay waa dad isku luqada waa dad isku midaba ma kala maarmaan waxaana loo baahan yahay dadku inay ka shaqeeyaan walaalnimada iyo midnimada laakiin dadka yaa jahawareer ku ridaya siyaasiyiin dana gaara leh ayaa shacabka jahawareer ku ridaya waxaan ognahay fiisaha la soo rogay e-visa in cid walba oo passport ajnabiya wadata ay tahay Somaliland iyagoo xashka ku taga passportka Soomaaliga oo Soomaaliya ayaa haddana waxay leeyihiin Soomaali ma rabno aqliga bilaadanka ma galaysaa waxaa la yaab leh in siyaasiyiinta Somaliland ayna shacabkooga u danaynin imika diyaarado ayaa Dubai jooga oo mar walba laga dejinaya shacabkii because ma wataan e-visa kuway la soo hadlayaan baa waxay ugu sheegayaan siday rabaan waa waxa la yaab leh imika ee aad arkaysaan sameynaya Somaliland sidoo doona u boofinaya sidoo doonana xalka u doonayo inuu gudbiyo waliba hadhow toro laabta ku qaraacanayeen in adeerkii leeyahay lama qaban karo lama xiran karo waxba lama oran karo ee shacabkii uu dhib qabo maaha siyaasiyiintii ma qabaan waad arkayseen gudoomiyaha xisbiga wadani oo maalin dhaweed qaylinayay wasiirkii hore arrimaha dibadda oo qaylinayay way idin arkayseen wasiirkii hore ee duulistii hawada ahna gudoomiyaha xisbiga oo qaylinaya waad arkayseen waxaan ummadda la wadaagaya shacabka Somaliland waxa lagu riday jahawareer siyaasadeed runtiina waxa loo baahay aqligu inuu shaqeeyo waxaanay tahay dibta taagan dhowr iyo 30 sanadood waxa lagu jiray
madadaalo caruureed ummaddana loo sheegaya ictiraafku waa beri waa sahan dambe waa sidan maanta markay xaqiiqdii timid waxaad moodaa madaxda somalilan marka ay hadlayaan inay diyaaradihii oo sharci international maraya inay baabuurtii qaadka keenaya la mid yihiin oo ay qaad wadaan oo kuna inay dadba wadinba kuwan aad aragtay ee hargeysa iyo booramiya markay galayaan iyo burca iyo qofka bili-aadanka ee hortooda maraya ma arkayaan xitaa marka ay soo gaadhaan kantaroolada lama baadho waxay ka dhigeen diyaaradihii qaadka keenayay bay ka dhigeen diyaaradihii shacabka wade international adduunyadu taqaanay ee sharciga ku socday waa nasiib daro maanta waxay ahayd in caqligu shaqeeye maaha in ummadda wixii la rabo loo sheego runtiina waxaa looga xumaado weeye shacabkiibaa dhiban uma naxayaan waxay rabaan bay iska sheegayaan cid dhegaysanaysa adduunyaduna ma jirto waayo qofka marka dhegeysay markuu dowlad dalku hal dowlad buu leeyahy madaxweynuu leeyahy madaxweynaha waa xasan sheekh wey calankaa buluugee garaashayda joogu dalku leeyahy intaasuu adduunyadu ictiraafsan tahay wax kale ma ictiraafsana runtana in lagu dhaqo dadka nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam runtu yahdii ila albiri qofka janno ayay ku hadaysaa oy gelisaa beentu naar bay dadka geysaa in waxaan jirin dadka loo sheego jahawareer lagu rido waa caqliga bini-aadanka mid aada uga fog waxaan leeyahay dadka gobolada waqooyi inay waantoobaan oo iyagu gartaan wey oy lacagta fiisaa iska bixiyaan inta ay intaasoo kharashkii kaga baxayo habeen walba inta ay dubay joogaan wax bini-aadanka u fudud oo dad ku adkaynayana caqli maaha waxaa runtii wax laga xumaadaa waxa aan dadka la wadaagayaa waxaad ogeydeen abaarihii iyo dhibtii dadka soo gaadhay ilaa imikada maamulka somalilan magac baxay lacagii abaarihii wax xisaabtana ma keenin lacagtii abaaraha halka ay ku dambeysay in dadkii shacabka loogu qabtay waa maamulka cero ood maalin dhoweyd ka maqlayseen ugaaskii guud ee beesha gadabuursi waxyaalihii uu ku faaninayay ilaa imika waxaanu isweydiinaynaa inay tahay keliya dan shaksi ugaasku inuu ka hadlayo isaga un in loo yeedhay oo u yimiday laakiin ballanqaadadii hadday noqoto waddadii magaalada baki hadday noqoto dikadii hadday noqoto airboortkii hadday noqoto guddoomiyihii gobolka salal ee odayaashii iyo dadku ka cabanayeen wax looga qabtay ma jirto ma garanayno ugaaska gadabuursi waxa uu ka hadlayey oo uu ku ammaanayey cero iyadoo dhaqaalihii xitaa abaaraha lacagtoodii ay maqan tahay ilaa imika waxaa runtiis abaabulay dad wanaagsan oo ka soo jeeda ree awdal iyo dad kale oo muxsiniina waxa aan baynalaawa daawataan riiga aad arkaysaan ee la soo iibiyey ee loo wado gobolkii awdal riigan waa riig dad tabaruc leh oo maaragtay ku tabarucay riigan oo loogu talagalay gobolka awdal reer monasato oo ugu horeeya masarkaahin runtii aad iyo aad baan ugu salaamayaa sidoo kale reer australia dictor barkhad iyo saadiq iyo xuseen raggii ka qayb qaatay sidoo kale reer masar cawaale riigi waa diyaar waad arkaysaan waa reeri wuxuu diyaar u yahay inaan rarno faqad insha allah waan raraynaa se ugu dhaqsaa badan ayaa lagu rarayaa riigina waa kaas waa riig cusub oo jadiid insha allah waxaan doonaynaa inaan u rarno dalkii insha allah waxaan ka rajaynayaa dadka qaybka la baxay ka soo bixi jeebkooga ilaahi subxana watacaala ugu qadaro wax khayr badan asalaamu calaykum halka barnaamijka aad ka daawanaysaani waa Somali Kadiyan TV and Radio Boorame dadka barnaamijka daawanaya riigaas waxaa ururiyey shacab degan oo ka yimiday gobolka awdal iyo dad muxsiniina Australia dad kale oo iyaguna degan dalkan Canada Edmonton dad kale oo iyaguna Washington Seattle jooga iyo kuwa kale oo jooga Minnesota oo runtii mahadnaq gaara leh dhammaantood maantana ay muuqato midnimadii beesha gadabuursi oo ugu horeeyo arrimaha la wado oo ay tahay in laga shaqeeyo riigaasi beeraha in lagu waraabiyo in dadka had iyo jeer abaaraha soo noqnoqonaya wax looga qabto ujeeddada ugu weynina intaa ay tahay waxaa runtii mudan dhammaan dadkaas oo mudan
tusaale qurux badan oo ah in lagu daydo. waxaa jira xadiisuu nebigu wariyey sala allahu calayhi wasalam. xadiiskan waxaa wariyey jaliil ibni cabdillaahi albajali. maalin maalmaha ka mida nebiga sala allahu alay waslm masaajidka madiine jooga, dadaad yaabto diiftooda siday u eg yihiin, dharkay xiran yihiin, ayaa nebiga waxa uu wejigiisii isbedelay u ka argagaxay siday u eg yihiin. dabeed nebiga asxaabtiisii ayuu u yeedhay, wuxuu ku yidhi infiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt. aayaddaasuu ku celceliyu wax la baxa intaanay dhimashadu idiin imanin. dabeed asxaabtii nin walba wixii uu helayey ayaabuu keenay, kaanamaa buuroo kale bay noqotay. rasuulka wejigiisii madoobaaday uu caddaaday. markaasaa wuxuu yidhi xadiiskanaan hadda soo daliishanay oo ahaa jaliil cabdullaahi albajali, man sanaa sunnatu xasana, sunno wanaagsan qofkii sameeya ajarka ilaa yowmalqiyaama buu leeyahy. dadkii riigga iyo wax kastoo camal wanaagsana sameeya sidaasoo kale ayay tusaale qurux badan u tahay, sida uu rasuulkii ilaahay noo sheegay. oo weliba xadiis kalena uu ahaa axabu nnaasu ila allah, dadka ilaahay uu jecel yahay iyo acmaasha ilaahay ugu jecel yahay. dadka ilaahay uu jecel yahay waa dadka ugu intifaaca badan leh. ninka dhakhtarka ah, ninka wadada samaynaya injineerka ah, ninka dadka waxa fiican faraya xumaanta reebaya, ninka dadka marka ay gaajoonayaan gaajada ka qaawiya ee ka fayda, ama nin deyn lagu leeyahay qofka deyn ka bixiya. nebigu wuxuu ku sheegay dadka ilaahay ugu jecel yahay. haddaba dadka iyaga oo camalkaa wanaagsan la yimid aad arkaysaan oo riigga u wada iyo hay-adda lafteeda ah iyaduna midda qayb ka qaadatay oo runtii lacagta lagu hagaajiyey. waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii barnaamijka ka shaqeeya, rag iyo dumarba meel kastooy joogaan. aniga oo ah tafaqatiraha radio borome somalican t v oo ah xaamud sultaan cali cilmi. inta aynu mar kale hawada ku kulmaynana le assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.